bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhawaada wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha oo markaasi aan idinku soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay ee dhanka isboortiga oo ay markaasi ka mid yihiin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo markaasi ciyaartooy dhowr la xiriirinayo kooxo waaweyn. warar soo baxaya ayaa sheegaya in macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ay suuragal tahay inuu dib ugu laabto dalkaasi Spain isla markaana uu isaga tago kooxda Manchester City. warbaahinta qaar ayaa ku waramay in ay suuragal tahay Pep Guardiola inuu kooxda Manchester City macasalaameeyay xilli ciyaareedkanba. legendiga reer Brazil ee ay mar ka soo wada ciyaareen kooxda Barcelona Rivaldo ayaa waxa uu shaaciyay in Pep Guardiola uu dib ugu laabanayo dalka Spain hadiiba laga ganaaxo kooxda Man City inay ciyaarto Champions League. Pep Guardiola ayaa dalka Ingiriiska waxa uu ku qaatay 3 xilli ciyaareed oo markaasi leelinaya kooxda Manchester City 2 sano oo xiriir ah ayuuna u qaaday koobka horyaalka Ingiriiska. waxa haatan la leeyahay Manchester City waxa ay lumin doontaa macalinka muhiimadda weyn u leh kooxda ee ka dhigay kooxda ugu awoodda badan haatan qaaradda Yurub. waxa markaas suuragal la leeyahay hadii Manchester City wararka soo baxaya ay sheegayeen in laga ganaaxayo Championka ay sax noqoto inuu dib ugu laabto dalkaasi Spain. warar qaarna waxa ay leeyihiin waxa uu maamuli karaa kooxda Barcelona oo uu muddo soo maamulayay. kabtanka xulka qaranka ee dalka Belgiumka Eden Hazard ayaa waxa wararka qaar ay sheegayaan caawa soo baxayahay in uu u duulay dalkaasi Spain isla markaana ay suuragal tahay in uu heshiis la gaaro kooxda Real Madrid oo muddooyinkii dambe la xiriirinayay. majalada ka faallota ciyaaraha ee Football Daily ayaa daawacday in Eden Hazard uu markaasi u duulay Real Madrid isla markaana halka ay suuragal tahay in uu soo dhameystiro heshiiska uu ugu biirayo xilli ciyaareedku markuu dhamaado kooxda Real Madrid. warbaahinta ayaa maalmihii la soo dhaafay si aad u wada lahayay in Eden Hazard uu heshiis la gaaray kooxda Real Madrid isla markaana marka uu dhamaado xilli ciyaareedku uu markaasi u dhaqaaqi doono dhanka iyo dalka Spain. haatan Eden Hazard waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda kooxda Blues ee Chelsea ee ku sugan dalka Mareykanka kuwaasi oo caawa la dheeli doona kulan saaxiibtinimo koox ka dhisan wadankaasi. laakiin war goor soo baxay ayaa sheegaya in Eden Hazard uu u duulay dalkaasi Spain si gaar ah magaalada Madrid isla markaana waafaahin dheeraad ah weli lagama helin sababaha halkaas uu ugu duulay Eden. ugu dambeyntiina kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa la xaqiijiyay inuu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda maanta isla markaana uu diyaar u yahay kulanka kooxda Real Betis ay la dheeli doonto kooxda Real Madrid kaasoo ka dhici doona garoonka Santiago Bernabeu maalinta Axadda ee soo socota. Sergio Ramos ayaa ku dhawaad 2 bilood ka maqnaa kooxda Real Madrid oo markaasi dhowr kulan guuldarooyin la kulantay intii uu maqnaa. waxaana haatan uu dib u soo laaban doonaa kulanka maalinta Axadda ay kooxdiisu la dheeli doonto kooxda Real Betis. macallin Zinedine Zidane ayaa waxa markaasi uu dib u heli doonaa adeega ciyaaryahanka spiritka badan ee dhanka difaaca qalbada dhexe kooxda ka maamula. kooxda Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu ahaa kii ugu liitay iyadoo markaasi guul dareysatay 11 kulan oo xiriira waxaana ay ka dambaysaa kooxda Barcelona ee hogaanka horyaalkaasi haysa 18 dhibcood. macalinka Real Madrid Zinedine Zidane oo dhawaan dib ugu soo laabtay kooxda ayaa haatan waxa uu ku jiraa diyaar garow ku aadan in ciyaartooy badan uu ka diro garoonka Santiago isla markaana uu soo qaato dhowr ciyaartooy oo wax ka bedeli karta mushkiladda kooxda haatan leylada la dhacayso. ciyaaryahanka weerarka uga dheela kooxda Manchester City ee Lawrence ayaa wada hadal la furay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka waxaana markaasi Bayern Munich ay cadeysay saxiixaan xiisaha ay u qabto ciyaaryahanka heerka caalamiga ee xulka qaranka Germany ayaa heshiiska uu kula jiro kooxda Manchester City waxa uu ku eegyahay 2021 waxaana markaasi la sheegay haatan inuu diiday heshiis cusub inuu u saxiixo kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska. wakiilka ciyaaryahanka Lawrence iyo mas'uuliyiin ka tirsan kooxda Bayern Munich ayaa la xaqiijinayay marka kulan ka yeesheen suurtagalnimada ciyaaryahankan da'da yar uu ugu biiri karo kooxda Bayern Munich oo dhanka weerarka markaasi ay ku xoojin doonto maadaama Bayern Munich ay xilli ciyaareedka markuu dhamaado ka fariisanayaan ciyaartooyda ugu muhiimsan qaarkood oo ay ka mid yihiin Arjen Robben iyo Frank Ribery oo markaasi ciyaartooy aad muhiim ugu ahaa weerarka kooxda Bayern Munich. hagaag daawadayaal maxaad kala socotaan ciyaartooyda waaweyn ee xilli ciyaareedku markii uu dhamaado ka fariisanaya ciyaarista kubadda cagta ama isaga tagaya kooxahooda. ciyaartooydaasi waxaa ka mid ah Xavi Hernandez oo u soo ciyaaray kooxda Barcelona haatanna muddooyinkii ugu dambeeyay ka dheelayay horyaalka
dalka Qatar. Shaafi waxa uu ku dhawaaqay in marka uu dhamaado xilli ciyaareedku uu iska dhigi doono kabaha uu ku ciyaaro isla markaana uu ka fariisan doono dheelista kubadda cagta. Xavi Hernandez ayaa suuragalay tahay markaasi in uu marka uu ka fariiso kubadda cagta dheelisteeda uu noqdo macallin tababare kooxeed. Mataanaha weerarka kooxda Bayern Munich ee Arjen Robben iyo Frank Ribery oo labaduba si rasmi ah ugu dhawaaqay marka uu dhamaado xilli ciyaareedku inay isaga tagayaan Bayern Munich. Sidaas la mid ah Daniel De Rossi halyeyga kooxda Roma ayaa isna si rasmi ah u xaqiijiyay inuu isaga tagayo kooxda Roma marka uu dhamaado xilli ciyaareedku. Waa ciyaartoy waaweyn oo wacdaro ka soo dhigay kubadda cagta isla markaana haatan garoomada banayn doona, waxaana markaa boosaskooda ay kooxaha ay ka tagayaan ay u ordayaan inay buuxiyaan oo ciyaartoy daayar ay ku soo buuxiyaan boosaskaasi. Kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain ka dhisan oo weeraryahankooda Antoine Griezmann uu ku dhawaaqay habeennimadii xalay inuu isaga tagayo kooxda marka uu dhamaado xilli ciyaareedku ayaa haatan waxa ay doondoonis ku haysaa weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi. Warbaahinta dalka Spain ka soo baxda qaarkood ayaa qoraya in Icardi ay xiisaynayso Atletico Madrid isla markaana ay wakiilo u direen si ay markaas ciyaaryahanka u soo daawadaan ciyaarihiisa. Mauro Icardi ayaa waxa sidoo kale doondoonaya dhowr kooxood oo ay ka mid yihiin Real Madrid iyo kooxo ka dhisan dalkaasi Ingiriiska. Sidoo kale waxa doondoonaysa kooxda Juventus oo dhanka weerarka inay ku xoojiso markaa danaynaysa.